kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa wararkii video ku soo dhawaada warka maalinlaha ah ee halkan aan kula soo gudbino idinka oo nagala soconaya baraha bulshada aan ku leenahay ee Facebook iyo YouTube maalin kasta halkan ayaan ku soo gudbinaynaa wararka dibadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya qodobada maanta aad ku maqli doontaan warkeena waxaa waaweyn hal qodob oo ay ku heshiiyeen Axmed Madoobe Siciid Deni iyo رئيسul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble maxaa ka soo baxay kulankii koobaad ee shirka maanta qodobadaas waxaan ku faahfaahin doonaa qodobkaasi warkeena musharax daahir geelo oo ku tiqtiqsaday maamul xumadii madaxweyne Farmaajo intii uu hayay talada maamulka doorashada dalka dagaal culus oo ka socda degmada Wanlaweyn oo ka soo baxaya sidii loo dilay iyo dadkii geystay dil loo geystay sheekh caan ka ahaa magaalada dagaalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena wararkii media waa tahay daawadayaal qodobadaas aan idin sheegnay oo faahfaahsan ku soo dhawaada aynu ku bilaabano qodob ka mid ah qodobadii ugu waaweyn ee la isku haystay ayaa waxaa is-afgarad ka gaaray madaxweyne Axmed Madoobe Deni iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xog la helay ayaa waxa ay sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo madaxda maamulada Puntland Jubbaland kala hadlay arrimo ku saabsan ciidanka la socda Roble ayaa labadan maamul ka dalbaday in aysan saxaafadda u soo bandhigin ciidanka la socda isla markaana uu damaanad qaadayo in ciidanka AMISOM ay sugi doonaan ammaanka goobta shirka Roble ayaa labadan mas'uul waxa la sheegay in ay aad uga wada hadleen arrintaasi inkastoo labadan hogaamiye ay la socdaan ciidamo hubeysan isla markaana la ogaa ayaa haddana lagu heshiiyey in la yareeyo saameyntooda dhinaca warbaahinta amaba aan la soo bandhigin markii ay ka soo degayaan garoonka Muqdisho sababta uu Roble arrintan u dalbaday ayaa lagu sheegay in uu uga gol lahaa yareynta hadallada ama sawirada baraha bulshada taasi oo laga yaabo in ay dadka kiciso kadib markii labada madaxweyne ay la yimaadeen ciidamo aad u hubeysan isla markaana garoonka ka dhigtay meel ciidan uu degan yahay ama goob dagaal meel ciidan loogu diyaar garoobayo Maxamed Xuseen Roble ayaa isku dayay inuu xakameeyo dhammaan waxyaabaha keeni kara in ay bixiyaan sawirro colaadeed amaba shirka u ekeysiyaan mid lagu baratamayo dagaalna uu ka dhalan karo ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale doonaya inuu dhiso kalsoonida shacabka Soomaaliyeed si ay u aaminaan in shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore kana fishaan inuu guul ku dhamaan doono shirka ayaa waxaa shirarkii hore uga duwan yahay iyadoo uu shirku hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble meeshana ay ka baxday hogaamintii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la saaray mas'uuliyadda eedda fashilka shirarkii hore waxaa aad u sareysa rajada laga qabo in shirkan uu guuleysto iyada oo loo heelan yahay in heshiis laga gaaro ayna xifaaltan u dhaxeeyaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya waa tahay daawadayaal wararkii media ayaa naga daawanaysaan markana aynu si toos ah u gadagalno shirkii maanta sida tooska ah uga furmay magaalada Muqdisho iyo qodobada hordhaca ah ee laga wada hadlay waxaa soo gabagaboobay maalintii koobaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ee ka dhacaya teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho shirka oo uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana looga hadlay sidii loo wajihii lahaa xalka gaarista arrimaha doorashooyinka madaxda shirka ka qayb gashay ayaa wararku ay sheegayaan inay gaareen isfaham balse la sii anba qaadi doono shirka maalinta berri ah oo axad ah sii socon doono shirkan oo hore loogu qorsheeyay inuu furmo Khamiistii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa dib u dhac ku yimid kadib markii qaar ka mid ah madaxda maamulka waa in laga soo saaro ciidamada gobolka Gedo kaasi oo hore u geeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Madoobe ayaa sheegay in arrintaasi ay muhiim u tahay arrimaha doorashooyinka, waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya arrinkaasi uu si dhaqso ah uga aqbalay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Madoobe. Ujeedka ayaa la sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu doonayo in wax la isla fahmo ayna dhibaato ku tahay arrimaha shuruudooyinka ee madaxda qaarkood ay soo bandhigayaan shirkan, sidaas darteedna uu arrintaasi ku aqbalay. Haatanna musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa aad waxa uu ugu tiiqtiiqsaday arrintii maamul xumada ee madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaabkii uu maamulayay doorashooyinka Soomaaliya. Musharax Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka hadlay fursadda uu lumiyay madaxweynaha madaxweynkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farintan oo ku socotay Farmaajo ayuu waxa uu ku yiri, talo waa mar aad garan weyso iyo mar aad gaari weyso. Farmaajo waxaa soo martay maalin gurbaan taageero loo tumayay, maalin laga dalbaday inuu gogol fidiyo si kale guurka looga arrinsado, balse waa uu xagaldaaciyay. Daahir Geelle waxa uu intaas ku daray, waxaa xigay maalin gogosha isaga laga codsan jiray oo ay beesha caalamku isaga ugu yeerto, waana isaga dhaqaaqay arrintaasi. Waxa uu saadaaliyay in khilaafka doorashada Soomaaliya uu muuqdo mid dhammaan doona miiska wadahadalkana uu ku dhammaan doono iyada oo uusan joogin madaxweyne Farmaajo. Waxaa muuqata arrinta Soomaaliya ee miisku dhammaadka ahayd inay ku dhammaan doonto miis uu Farmaajo ka maqan yahay. Sidaasi waxaa yidhi musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle oo haatan ah musharax u taagan xilkaasi. Daahir Maxamuud Geelle ayaa horay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay wasiir uga soo noqday, isaga oo soo noqday wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. weli waxaan noola socotaan daawadayaal wararkii media. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-kan ku leenahay ha ilaawin inaad subscribe saarto, saaxiibadaadana u gudbiso. markana aynu eegno gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada Wanlaweyn. sabab la yaab leh ayaa ka dambeysa dagaal Wanlaweyn ka dhacay. wararkii ugu dambeeyay ayaan halkaas idin soo gudbin doonaa. dagaal culus ayaa waxa uu maanta magaalada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed. dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana la xaqiijiyay inay dagaalkaasi ku geeriyoodeen 3 ka tirsan ciidamada dagaalamay iyo qof shacab ahaa, halka dhaawacuna intaasi uu ka badan yahay. dagaalka ayaa la sheegay inuu u dhexeeyay gudoomiyaha degmada Wanlaweyn Maxamed Siidow Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada Axmed Khayr Cadow. gudoomiye Maxamed Siidow oo la hadlay idaacadda BBC-da waxa uu sheegay in gudoomiye ku-xigeenka uu isbaaro dhigtay bartamaha magaalada, isla markaana uu lacago baad ah ka qaadayay $110 lacag gaaraysay uu ka qaadayay gawaarida xamuulka ah. gudoomiyaha ayaa sheegay in isbaarada uu dhigtay gudoomiye ku-xigeenka ay ka dambeysay, taasna ay keentay in ay ka xanaaqaan qaar ka tirsan ciidamada daraawiishta ee ka amar qaata degmada, kuwaasi oo iyaguna isbaaro kala dhigtay. kadib ay weerar ku soo qaadeen ciidamo uu hogaaminayo ku-xigeenka oo uu sheegay inuu diidan yahay in cid aan isaga ahayn ay isbaaro dhigato magaaladaasi. mar wax laga weydiiyay khasaaraha ka dhashay dagaalka ayuu sheegay in ciidamadu ay ka dhinteen 1 askari, sidoo kalena uu dhintay wiil dhalinyaro ah oo ay ku dhacday rasaasta la isdhaafsanayay. waxa kale uu sheegay inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ciidamada. gudoomiye ku-xigeenka oo uu sheegay in aysan ka haynin tiro saxa dadka dhintay. ila madax bannaan ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiye ku-xigeenka ay isku haystaan sidii loo maamuli lahaa lacagaha baadda ah ee laga qaado isbaarada ciidamo ka tirsan kuwa dowladdu ay dhigteen magaaladaasi. maamulka Koonfur Galbeed ayaan weli wax hadal ah dagaalka
ku saabsan waa dagaal ka dhacay magaalada Wanlaweyn wax hadal ah oo ku saabsan aan arrintaasi ka dhehinin. waxaa la yaab leh in waqtigan lagu jiro isbaaro ay dhigtaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya haddana ay isku dilaan. dadka qaar ayaa soo xasuusanaya waqtigii 1991 ilaa iyo 2005 arrintaasi oo ka dhici jirtay guud ahaan geyiga Soomaaliya. waa tahay daawadayaal wararkii media ayaa naga daawanaysan intaasi ayaanu jecelnahay inaan kusoo gabagabayno war wixii dunida dacaladeeda naga soo gaaray. haddii aad ka cusubtahay bartan YouTube-kan ku leenahay subscribe saar saaxiibadaadana u gudbi.